السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي صويا إن شاء الله هل كان waxaan rabaa إن شاء الله بإذن الله الكريم waxaan rabaa inaan ka cadeeyo ceebta ay ku sameynayaan iyo awood sheegashada iyo dulmiga ay dadka u geysanayaan nabadoon Muuse Mire Xaaji Siciid iyo Abwaan Yuusuf Axmed gudoomiyaha gobolka Bari kuwaasoo awood sheegasho khaas ah geystay iyo ku gaboodfal xukunka ay hayaan waxaa dhacday yaan la soo wicin dadka ay daawanaya fadlan hay soo garaacina hay soo wicina asxaabta waxaa dhacday in uu sameeyay nabadoon Muuse waxa weeyaan waa dumaashigay wuxuu qabaa walaashay wuxuu cidda uu dulminayaana waxa weeyaan walaashay kale oo la yiraahdo Khadra Siciid Maxamed ayuu isaguna dulminayaa waxa uu sababta uu dulminayaana aniguna waxaan ahay Farax Siciid Maxamed waxa aan halkan ka cadeynayaa dulmiga uu Muuse Mire dadka kula kacayo iyo awood sheegashada tirada badan leh iyo xukunka iyo shaarka iyo cidda uu hanjabayo bal igala dhageysta dadweynaha inta wax garadka ah inta Ilaahay ka baqaysa inta rumaysan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo maaragtay ka dambeeyo bal ila dhageysta ninka dhan nabadoonka waxa dhacday in xaaskiisu ay xaamilo ahayd inuu dacwad soo gudbiyay xaaskiisa xaamilo ahayd dhakhtarkii iga daawala faysay insha Allah ay soo qaraacine dhakhtarkii la xiriiri jirtay dhakhtarkii sidee ula xiriirisay waqtigeedii waxa la gaadhay inay walaashay ay noqotay overdue xilligii ay dhali lahayd ay dhaaftay waxa dhacday marka in Muuse Mire Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaskiisii uu u yeedhay dhakhtarkii walaashay qabay oo Masriga ahaa uu u yeedhay uu saaray iskaankii markuu saaray wuxuu u sheegay in waqtigii ilmahani dhaafay ilmahani markuu waqtigiisii dhaafay waxa dhacday inuu ilmuhu uu siriraa oo oxygen-ta ku yaraata dacwad wuxuu soo saaray Muuse Mire isku day dil ah haddii ay noqotay dacwadii isku dayga dilka ahayd uu ku dacwado yiri ilmahaygii buu reerkan iga dilan ilmihii Ilaahay nabadgelyo ugu soo saaray way dhaleen qalin bay walaashay ku dhashay ma sha Allah Ilaaha noo daay babygeena asxaabeedinkana ma sha Allah dhaha waxa dhacday in uu baybygii markuu dhashay isagoo nabad qaba laakiin sirrsan oo dareemisid waqti inuu ilmuhu waqtiga markuu dhaafo ay ku dareemisid inuu ay tahay uu sirirayo ayaa Muuse soo cararo uu sado dawladda tago uu ka soo dacweeyo uu yiraahdo ninkii Masriga ahaaba iga dilay gabadhaydii ilmahaygii iga dhibaateeyay oo dil iga geystay ilmihii ma dhiman walaashayna ma dhiman way nool yihiin labaduba wuxuu soo dalacay dacwad ah in uu ninkii Masriga ahaa ee dhakhtarka u ahaa ee intaasoo sano wanaaga iyo walaalnimada iyo khayrka u waday ayuu wuxuu ka dhigay in uu isaga maaragtay ilmihiisii ka dhibaateeyay dhakhtarkani ilmahan wax dhibaataa uma geysanin just scan buu saaray wuxuu yiri orod oo u tag umulisadii markay u tagtayna umulisadii way ku dhalweyday walaashay qalin bay markii dambe qaadatay intaasay ahayd sheekadu ay ka bilaabantay laakiin nabadoonuhu wuxuu yiri waxaan doonayaa in aan xoog iyo power adeegsado oo ninka Masriga ah aan soo xidho haba yiraahdo dacwadii uu gudbiyay Muuse uu ku feel garoobay dacwadda cadeynteeda way nii soo diri doonaa gabadha uu dulminayaana waa Khadra Barshaad ninka uu dulminayaana waa Siciid waa Maxamed Cabdiraxiin Abruus oo ah walaasha Khadra odageeda waa nin ajaanib ah waa nin aan dhibaato u geysanin waa nin ay intaasoo sano uu naasnuujin u sameynayay oo uu isaguna lahaa Muuse Mire wuxuu lahaa farmashiye walaashay odageedana nin aqoon-yahan oo qalinkiisa ku shaqaysto ahaa waxa dhacday in dacwadii uu ku feel garoobay Muuse Mire dacwadii markuu ku feel garoobay u tagay meeshii maxkamadii dhexdeedii wuxuu ka yiri dacwadani been bay ahayd markii dhaqtariintii wixii oo dhan la baaray ee inay been tahay la arkay uu yiri been bay ahayd laakiin waan ka noqday ما شاء الله ha ka noqdo wax wanaagsan laakiin waxa dhacday in uu sameeyo
uu yidhaahdo dadkii odayaashii nabadoonnadii iyo odayaal iyo ninka duqa gobolka bari abwaan yuusuf xasan uu sameeyo uu yidhaahdo anayni dhexdhexaadinaya anaa arrintan dhex gelaya arrintan hoos baan u dhigaynaa arrintani ma noqon doonto arrin bannaanka u baxda annagaa dhexdeena ka heshiinayna heshiiskuma xuma halkana wuxuu abwaan yuusuf la soo baxay warqad ah ay ku qoran tahay in uu sameeyo saxiix ay ugu qoran tahay ah Khadra Baarsheed waxaad dhiibaysaa 70,000 maxay walaashay ku kasbatay sababtoo ah ninkeedu waa ajaanib ninkeedu waxa weeyaan nin miskiin ah nin aan waddanka u dhalan weeyaan 70,000 baa laga qaadaya 30,000 wuxuu yidhi Muuse Mire waa shaadhkaygii 40,000 farmashiyahan iga siisanaya dawada iyo wuxuu u baahan yahay ba laga gato ma xuma laakiin shaadhkiisii dhanaabaaba intaa noqday markii lala dooday la yidhi war haadhe xageed u socotaay naga joogna wuu diiday wuxuu yidhi amba waxbaan dilayaa oo khaasatan Khadra Baarsheed baan dilayaa iyo ninkeeda amba guriga dhan baan xoolahooda dhan baan dhacaya oo qabsanaya amba waxaan samaynayaa in aan u geysto maaragtay 70,000 aad siisaan gudoomiyihii gobolka bari isagu la tirsaday wuxuu sameeyay buu sameeyay aakhiradiisii buu ilaaway wuu ilaaway inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku dhaartay wuu ilaaway inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa kusoo galay meeshan inuu ummadda kala xukumo wuxuu u tanjaarsamay in uu awood sheegasho uu ku sameeyo oo yidhaahdo Khadra Baarsheed oo gurigeedii dhex joogta waa hooyo umulah waa hooyo ilmo yara abaydina haysata oo imika umushay wax yar jira waa hooyo xanuunsanaysa oo sonkor qabta ilmaheedii gurigeedii ka dhex shaqaysanaysay iyo goobteedii shaqayada dhex joogta ayuu maanta cararay in abwaan yuusuf xasan wuxuu yidhi wuxuu u soo samaystay maaragtay inuu saldhiga kasoo dacweeyo walaashay oo waxay galabsatay lahayn dambi ay gashay aan lahayn wax aliya waxa laga raboo dhan ay ahayd yacni baad iyo lacag siyaada in laga qaato ayuu bartii kusoo xidhay uu ilmaheedii abaydinka ahaa iyo iyadii kala jiiday ninkii dhakhtarka ahaa ee miskiinka ahaa ee waddanka ku cusbaana waxaa dhacday inuu bartii xanuun ku soo boodo uu kooma ku galo sababtoo ah wuxuu ogaa in xaaskiisa dil loogu hanjabayo in awood sheegasho lagu samaynayo in xaqiisii una nabadoon Muuse Mire una cadaalad una wax ku raadinayn uu ku doonayo awood inuu ku sheeganayo uu leeyahay mar walbana aniga shaadhkayga ayaa lacagta ii gooyay aniga shaadhkayga ayaa waxaan ii sameeyey cadaymaheediina waynii haynaa iyo hanjabaadaha uu ku hanjabayo waxaan dowladda sharafta le ka codsanaynaa abwaan isaguna wuxuu sameeyey garabnimuu sameeyey walaashay buu xidhay isagay maxkamad ahayd arrintooda in lagu kala baxo oo lagu sameeyo arrintani ay ahayd maxkamad in lagu kala baxay ahayd oo la kala dacwoodo oo qofkii dacwad qabaya kii wax lagu leeyahayba markaa la soo istaajiyo walaashay hadday xaq ugu leeyihiin lacagtana baad bay ahayd ay markaa ay ku wada kulmi lahaayeen maxkamadda ayaa walaashay gurigeeda sidii jiirka laga soo laalaadiyey oo la geeyey xabsigii haddii la geeyey waxaa dhacday in walaashay lagu hanjabay lagu caayay lagu bahdilo la yidhi qolka boosaneerka ku xareeya waa gudoomiyaha gobolka bari ninka saa u hadlaya ninka xilka loo dhiibay dhan ee maamulka dhan u haya ee dadka dhan u haya ayaa weeye ninka saa ula hadlaya waxaa dhacday in gudoomiyihii gabadheedii uu awood sheegto yidhi aniga ayaa ka sarreeya buu yidhi maxkamadaha aniga ayaa wax kastoo baawarana haysta horeyna Muuse Mire wuxuu ugu tookhayay uu sheeganayay inuu ninkani yahay nin uu haysto gudoomiyaha gobolka bari iyo rag kala badan oo uu ku tookhayay aad ugu tookhayay uu lahaa waxba igama qaadi karaan awood baan anigu haystaa shaar baan haystaa nabadoon baan ahay anigu waxaan ka codsanayaa oon caddaynaya dilka uu Muuse Mire uu ku hanjabayo iyo awood sheegashada uu awoodda ugu sheeganayo dadka masaakiinta ah ee waddanka qariibka ku ah eenu xaqa u lahayn inuu dhibaatada intaa lee gaadhsiiyo waxaan ka codsanayaa inay dowladda sharaftali ka hadlaan iyo inta waxgaradka ah ma sheegayo inta jeebka iyo hunguriga iyo dhaca dadka kula mashquusha uma sheegayo waxaan sheegayaa inta xaqa taqaana bal ila dhagaysta ilaahay bay nagu dhaarshay codadkan bal ila dhagaysta dad islaamaa tihiin dad waxgaradaa tihiin
bal ila dhageysta ninkaas dhan ee nabadoonka ah iyo ninka gobolka dhan maamula wuxuu ku hadlayaan ila maqla hanjabaada ka dhacaysa iyo xaq darrada ka socota. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Arrintani waxay ku bilaabay أنا بريء سوالف في أيه يلوك أما دريم في الطاقة والله بالله يسوع الله موسى بقول عليه وأنا كانوا يسقط الجريمة بقول يلوك أنا ما خطر معك أول سؤال كيف والله بالله تالله لا هي عدوسن ويصير مش نقول عليها يوم جوجا ضلفة وأنا أعرف ضلفة حرك أنا شارك أنا الحين أنت هذا الدري المغرب واحد الدري أنت قط يتمي وأنا شارك قبل والله بالله يحفظني arrintaasi wuxuu kaloo ku darayaa nabadoonkeennu wuxuu leeyahay yacni dad bayna laynayaa 300 oo qof baan iga xajinayaa oo idinka idin soo socda bal ila dhageysta dadow ila dhageysta dadka xaqa ilaahay ka baqayo ila dhageysta وأنت كنت عندك لكن أنا قلت لو جينا أنا وايدين شيء خطو كل يضربنا مكان صغان ممكن كان أنا مثلا شارع أنا قشنا هاي بدأ بوشة سنة وكجورة شارع أنا قشنا هاي وكجورة ضد بغنق وأنا يبغى يدا والله بالله يبغى والله ما كوشة واسدة دعوات أنا وقت دور ثاني ضد كذا ليش أستنى بحكي مدة صدق بقول قف بقول كذي صدق بقول اللي هو يقول طيب إن شو الصوني الصو كلام ودي بفراني الصو ما أنا نبغى البدل يايو نبغى البجحسن يايو نبغى كيل يايو الواحد كوسي من يلا كان يرجع نقول يا وجو هذه ما أنك كمسؤول كأنك وعليا أنك ورد قرط محكمتك السالة وأنك مسؤول من أقوى هذه كلوبه waad dhageysanaysan baan filayaa waanad maqashaan cadeymaha inta la leeg bal ilaahay bay nigu dhaarshay sababta inta leeg uu nin sadagiisa oo xilka mudan iyo gabadh dumaashidiisa intuu qabto inuu saa ugu hanjabo uu dil ugu hanjabo uu yiraahdo dad bay niga xajinaya dad bay nigu soo deynaya dib u shaqaysan meesaan bal sharaf xumada inta leegi halkay ka dhalatay miyaanu dalkan iyo dadkan ayna ahayn dad maaragtay wax maqla isqabta lahayn miyaanu jirin dad yacni dulmiga ka dhiidhiya xageed $70 uu muusamira ku sheeganaya yuu ku leeyahay yuu ka rabaa muxuu ninka abwaan gudoomiyaha gobolka bari ugu hiilinaya ilaahay ha laga baqo madax furasha maanta loo qabsaday alxamdulillah wala soo daayay laakiin wali waa la haystaa reerkaas reer wali gacanta lagu haysto weeyaan bal ila dhageysta tan kalena bal ceebtan kalena ila dhageysta ilaahay ceebaha sure waxa dhacday in had bal ila dhageysta dhageysta kani waxa weeyaan waa gudoomiyaha gobolka bari ما شاء الله waa gudoomiyaha gobolka bari oo la hadlaya Khadra Baashad kani ila dhageysta barwal buu xulay gudoomiyaha garabkayga taaganay haddaan ciidan soo watay haddaan ku soo ma gudoomiyaha gobolka caawinaya iyo ciidan baan soo watay waa idin liqaya waa idin burburinaya ku doodaya gaar wuxuu ii keenay daawo kaydii jumla taala wuxuu ii keenay farmasiga 40,000 lagu qiimeeyay wuxuu ii keenay 30,000 ilaa baan kugu dhaarshay qofku waa bini aadan seen waxa soo dhan uga dabaalan karaa aniga fahmantay awood baan haystaa soo waarun ugu gobol baan haystaa waana kay in xogaa magaranaysa ilaah dadku waxaan daawanaa faawire adan dhigis dadku aan dadka saaray dinka saawa laakiin meeshaan la badan yahay walaalahay hadda walaal soo kuma oran aniga xaq ma waxaan waa wax tirada ka badan miyaanan ka oran abwaano ilaahan kugu dhaarshay kooda aniga waxaan u jeedaa waxyaabaha xiriiraya مثل كلام يعطى تعود كشان ولا عاد كيف كيف يعني كيف يتكلم يقول لك الراس معود ما بتقول لك الآن كشخص اليوم وكذا وكسونه وكذا سمو محتاج حسن حتى وقت قلت عايز مش بدنا بديل وقرية أنا بالحقيقة أنا بفكر وشوها صاير زعلان صلاة صالين نبضنا معها موسى صادر صغير ما حق بقول له إنه محن كره هذا برنامج عن شباب كانوا يراهدوا قدوميها قبل كعاونة يا من كان عربك ولا الله دينا يا من كان ولا يليا ما حد رميته أنا بين كل شيء معي وأنا قدومي قبل كم إذا قبل كي يسرع مايا كل حاجة خصوصية تحدث
كل هذا كان في على الصلاة إلى أذير رونا hadda waaye aroonaade naadeerow aniguna walaasha baan ahay sida isaga iigu buuranaysiin anigana waa ina iigu naxdiin miyay xun tahay taasi aniga hadda gaagaala soo aniga waxaan ku soo gaagaala soo aniga waxaan ku ogaa arrinta waxaan anigu dhageyso anigu khasrada sheegay waxaan mas'uul mana soo inaan dhigeyso soo wax kale kuma shaqadana ma soo lagu ayaa haddan ku sheegay soo wax kale kuma dadku ogaadan ku go'aanta la gaarin iyaga ku tirtiyo odayaasha amniga oo sababay waxaad dhacay soo wax kale kuma laakiin nimanka waxa sameeyay Abu Bakar baan waxa Abu Bakar arrintan talawada aan taagilay waxa la Muuse inuu yiraahdo baashad waa run dhinac walba inaad ka gubatid شو باكر إنه يراهن لو وصل waad maqlaysaan baan filayaa yacni in awood sheegasho iyo xoog iyo quwad lagu socdo oo miisaska la isku tumayo lacag aan lagu lahayn dadka la saarayo dee ma garanayo madaxweyne Danay wuu arki doonaa baan malaynaya fariinteedani way gaari doontaa waxaan ka codsanayaa inta sharafta leh inta aan aqoonin maaragtay xadgudubka iyo inay dadka maaragtay ay ku sameeyaan waxyaabaha ah lacag ka qaadasho madax furashada yaqaana lama hadlayo inta sharafta la hadlaya iyo madaxweyne Danay waxaan doonayaa inuu arrintan si cad uga keeno war oo laga qabto ninkan iyo waxa uu wado ee gardarrada ah waxa uu ku socdaa waa xaq darro waxa uu doonayaa waa xaq darro waxa uu ka raadinayaa dadkana waa xaq darro waxaan doonaynaa in ilaahay ninkan dad hadduu leeyahayna dadkiisu qabsadaan haddaan dad qabsadaa jirinna dee dowladdu inay naga qabataan doonaynaa intii islaam ee ilaahay taqaana dulmiga ka cararaysa nin islaam weeyaan ninka miskiin weeyaan ninka la dulminaya waa nin aan wadanka u dhalanin waa nin qariib ku ah wadanka waa nin maaragtay annaga dadkayaga iyo dalkayagaba u yimideen wax noo qabto uu dadka caawiyo ma aha in isaga madax furasho lagu sameeyo waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka iyo madaxweynahaba inay maaragtay arrintan wax ka qabtaan oo nimankan maaragtay midna dilka uu ku hanjabayo uu leeyahay saddex bidkoodba waan u baahanahay leh amba waxbaan dili oo amba waxaan samaynayaa dhaxal wareejin baas waxaan samaynayaa maalkiina dhan baan dhacayaa amba 70 kun bad ay dhiibisaan waxaan doonayaa in arrintan laga daba tago madaxweyne Danay arrintan haday ku soo gaadho waxaan doonayaa in arrintan aad wax ka qabataan iyo inta aqliga u saaxiibka ah wad maqlaysaan garab caadi ay tahay wax ilaahay lagaga baqayo ma aha wax gar ee xala sameynaya waxaan codsan lahaa oo si sharaf loo codsanaya in arrinta wax laga qabto oo dadka maaragtay ay dadkani ay madaxda u yihiin ay ma dadka ka sareeya madaxda ahi in arrinta wax ka qabtaan baan rajaynayaa biidnillaahi alcasiis aad bad mahadsantihiin waxaanan ilaahay ka baryaa in cadaaladu ilaahay u heeliyo inta dulman dadka la dulminayaana waa ninka la dulminayaana waa ninka wax dulminayaana waa seedigay nabadoonay Muuse Mire kan wax laga dulminayaana waxa weeyaan waa seedigay isaguna oo Masri ah oo Maxamed la yiraahdo Maxamed Cabdiraxiim Abu Ruus 70 kun ayaa laga raadinayaa oo lacag ah oo wax alliye wuxuu ku qaatay aan lahayn wax alliye wuxuu ku qaatay aan jirin wax alliye waxa laga qaadayaa ayna jirin ay tahay baad iyo madax furasho marka hana laga qabtaan oran lahaa aad bad idin salaamaya ilaahay ummadda islaamka ana ha soo hadeeyo hadii dadka hadaayadu qoran tahay hadayna hidaayo lahayna ilaahay ummadda ka dhax qabtaan leenahay ummadda dadka inay xaqooda dhacaan ugu tala gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.